waxaan wadnay hawlo ku saabsan shaqooyinka aan u xil saarannahay oo aan u kuurgalaynay degmooyinka inaan degmooyinkaas iyo shacabka degan intaba aan kala hadlaynay ama aan kala shiraynay sidii bulshada kala duwan ee degmooyinkaas degan sidii loogu adeegi lahaa gaar ahaan arrimaha amniga sidii la isaga kaasho lahaa oo maamulka degmooyinkaas iyo ciidamada ammaanka ay isaga kaasho lahaayeen. degmada Dharkiinley aan soo marnay oo aan maamulkeeda iyo booliiska gobolka Banaadir oo aan si isku mid ah aan ugula shirnay saldhigga degmada Dharkiinley waxaana soo kala qaadanay shaqooyin aan isku dirnay horena aan ugu ballannay haddana wixii ka fulay iyo kuwa dambe oo maaragtay sidii loo qaban lahaa aan isu soo farnay. waxaan rajaynaynaa inay sidii aan ku soo ballannay ay u fusho ilaahay idinkii. waa soo gudubnay degmada Kaxdaan joognaa hadda oo aan tagnay saldhigga haddana degmada aan joogno bulshada qaybaheeda kala duwan meelo badan oo ka mid ah degmada dhexdeeda aan soo marnay aniga iyo taliyaha qaybta guud taliyaasha degmooyinka saldhigyada degmooyinka gaar ahaan degmada Kaxda iyo gudoomiyihii degmada Kaxda oo asaguna hadda nala jooga gudoomiye Xundubey oo asagoo laftirkiisu caawda nala shaqeynayay asaguna qayb ka ah wafdiga. marka intaasna waxaan ka shaqeynaynay oo aan u socono waqtigan aan u soo gaarno waxay ahayd sida loogu adeegi lahaa bulshada oo shaqooyinka mas'uuliyadeeda aan hayno loo gaarsiin lahaa dadka mas'uuliyiinta oo jooga degmooyinkaasna loogu kormeeri lahaa ama maaragtay loogu kuurgali lahaa sida ay u shaqeynayaan ama sida ay bulshada ugu adeegayaan. dardaarankeena ugu dambeeyda wuxuu yahay bulshada degan degmooyinkaas aan soo marnay inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka inay la shaqeeyaan maamulka degmooyinka ayaga oo maaragtay la soo wadaagaya xaalad kasta oo ka jirta degmadaas heeganay u yihiin waa u diyaarsan yihiin inay shaqadaas la qabtaan nooc kasta oo dadka dhib loogu geysto haddii ciyaal weero ay jirto degmooyinkaas ay ka jiraan waa ciyaal weeradu de magaalada hadda aaday ugu sii yaraahayaan dagaal badana lagu qaaday. waxaan uga mahad celinaynaa ciidamada ammaanka gaar ahaan talisyada qaybta guud iyo gobolka Banaadir Niisa iyo gobolka booliiska iyo degmooyinka maamulada degmooyinka aad uga shaqeeya hawshaas iyo shacabka gobolka Banaadir laftirkooda oo in badan oo kamid ah ayaga laftirkooda qayb ka qaatay. marka waxaan rajaynaynaa inay xilligan maaragtay ay noqoto maalmaha soo socda ama bilaha soo socda waqtiyadii u dambeeyay ma u dul qaadan karno shabaab ayaan maaragtay dagaal kula jirnaa khawaarijtan dawladda Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed dagaal kula jirtaa koox kale oo qowleysata oo noocay rabtaba ha ahaatee ayaguna bulshada dhinac kale ka dhibaya ma rabno inay magaaladan iyo Soomaaliya intaba ay ku abuurmaan. marka waxaan rabaa inaan kula dardaarmo oo aan faro maamulada degmooyinkaas ciidamada ammaanka oo laftirkooda ka shaqeeya hawlahaas intuba inay iska kaashadaan wax kasta oo dhibaya dadka shacabka oo degmooyinkaas degan in laga hortago wixii ayaga ka weynaadana daqiiqad kasta telefoonadeenna u furan xiriirkeena u furan ay nala soo wadaagaan si maaragtay annaguna meeshii kale oo aan isleenahay culays kale ay sii saari karaan aan ula wadaagno. marka waa mahadsantihiin gudoomiye aad iyo aad u mahadsantihiin adiga iyo shacabkaada sida quruxda badan ee aad noogu soo dhaweydeen degmadan oo bulshada aan ula sheekaysanay oo xogtooda aan u ogaanay wixii
hawlaha kale ku saabsan waxayna dhex marayo de ku saabsanaa baahiyaha degmada ka jirana insha Allah taala madaxda naga sareeyaan gaarsiin doona waa mahadsantiin